سنة كل الله dhammaan golaha wasiirka dhallinyarada isboortiga wasiirka ganacsiga wasiir ku-xigeenka howlaha guud wasiir alcadaala iyo dhammaan maamulka degmada howlwadaag taliyaha saldhigga degmada howlwadaag iyo taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahda saxaafadda xaqiiqatan sharaf weyn ayay noo tahay inaan maantay 3 saac oo subaxnimo suuqa bakaaraha bulshada qaybaha kala duwan oo magaalada ka timid inaan suuqa dhex galnay mid ugu tagnay annaga oo weliba maaragtay dawladnimada iyo amniga iyo doorashooyinka iyo waxa ay aaminsan yihiin intaba xog waraysanayna gaar ahaan annaga oo xoogga saarayna dadku siday ugu diyaar garoobeen doorashada qof iyo codka oo gobolka banaadir 25 bisha December ka dhici doonto waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dan qaran aan u mahad celiyo sida quruxda badan oo degmooyinka golihii wasiirada loogu kala qoray saaki wasiirada xukuumadda dan qaran waxay ku maqan yihiin degmooyinkay jiraan oo campaign iyo ole iyo baraarujinta shacabka ay u wada jiraan marka si gaar ah annaga saaka waxaan wada shaqaynaynay wasiirada halkan taagan si qurux badan ayay xaqiiqatan saakay markii bulshada ay dhex galeen wax badan ayay bulshada moraalkeedii iyo niyaddeeda ay ka bedeleen in wasiiradii dawladda oo socda oo suuqi bakaaraha dhex socda inay bulshada arkaan wax weyn ay xaqiiqatan ka bedeshay ayaga laftirkooda waxaa laga yaabaa wasiirada inay muddo dheer suuqa bakaaraha ragay ugu dambeeyay inay ku jiraan marka dee amniga dalku uu gaaray gaar ahaan magaalada muqdisho amniga ka jirta suuqan ayay xaqiiqatan ka muuqataa halkan ayaana tusaale looga qaadan karaa waxaan rabaa inaan warkayga ku soo gabagabeeyo dadweynaha gobolka banaadir degan oo isdiiwaan geliyey oo 1 milyan oo qof ahaa waxaa laynka rabaa inaad qaadatiin kaarka aad ku codaynaysiin haddii aad rabtiin meesha maanta dalku maraayo horay inuu uga sii socdo amniga maanta aan haysanno dawladnimada aan haysanno horumarka aan haysanno haddaad rabtiin inaan hore u sii soconno oo adduunyada aan la tartanno oo meesha ilmaheennu maanta ay ka tahriibayaan annagana loo soo tahriibo waxay ku xidhan tahay kaarkaas inaad maanta qaadatiin codkiinna aad la baxdiin waxyaalaha adduunyada ay ku kala hormarta waxaa ka mid ah dadka inay qofkay rabaan ay doortaan qofay berri la xisaabtami karaan maantay dalka dadka ka shaqeeya inta badan markii laga reebo golaha shacabka oo doorta madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo shuruucda dejiye laakiin inta kale magacaabis ay ku timaadaan waxaan rabnaa xataa madaxweynaha jamhuuriyadda kulli dadkoo dhan inay bulshada codkeeda ku yimaadaan waxa dawladdu ay u diyaarida waa intaas waxa maanta golihii wasiirada ay dadkii uga kaambay garaynayaan waa intaas waxa dadka ay fahansiinayaan waa intaas bulshoy soo baxa kaarkiinna qaata codkiinna la baxa kaarkaas waa mustaqbalkiinna markaad xataa codka ku dhiibatid ha iska dhumin qaado gurigaada dhiga sanduuqaada ku rido dawladnimada iyo maalintii koowaad oo cod la bixiyo inaad intaad tagtay goob isdiiwaan geliday kaarkii haddana soo qaadatay haddana codkaada ay bixido waxay muujinaysaa dadka kale inaad wadininimo dheertaa xaqiiqatan marka degmooyinkana waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada waa inaad si fiican u wacyigelidiin si ay u soo baxdo dad badan oo hadda waxaan soo aragnay haysta kaarkii diiwaangelinta shahaadadii degmada marka iyo qaybaheeda kala duwan waxaa laga rabaa inay dadka sidii maanta golaha wasiiradu ay u dhexgaleen inay u dhexgalaan ku baraarujiyaan inay maaragta doontaan dadka waaweyn xataa fadhigooda waa in loogu keeno guddiga doorashooyinka waxaan rabnaa inay suuqan weyn xataa dhex yimaadaan oo xarumo ay ka furtaan si maaragta dadku ay u qaataan ganacsiyadooda ku mashquulsan aad iyo aad u mahadsantihiin golaha wasiirada waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo degmada inaan u mahad celiyo waxaan noo ballana 25 December iyo inaan u soo baxno qof kasta codkiisa inuu la baxo ama uu wax doorto ama asaga la doorto hadduu ilaahay waa mahadsantihiin
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بaa mahadsan maanta inta isugu keenay dhamaanteen waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo tiimkii gobolka Banaadir ee degmada tan howlwadaag ciidanka booliiska lamad sugidda iyo ciidamada ammaanka ee degmada tan baan iyagana u mahad celinayaa oo shaqadan maanta quruxda badan noo suurta galiyay. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii Soomaaliyeed aan maanta halka ugu nimi ee ahaa dad dawladnimada iyo inay waxay tahay dawladnimada horkacaanin u diyaarsan. waxaan kala kulmay suuqa Bakaaraha wax maanta cajiib oo aanan hore u filan ama aanan u maleysanayn. waxay ugu dambeysay aniga suuqa Bakaaraha iyadoo orod lagu dhaafo oo qof ku day kara iyo qof ag mari kara iyo qof dukaan gali kara uusan jirin. waxaan soo gaaray iyadoo dadku ay xataa ka xishoodaan inay ku salaamaan oo kula hadlaan hadday kugu arkaan shaati dawladeed. laakiin maanta waxaan soo aragnay wax ka duwan taas. saaka 9 ilaa iyo hadda duhur lagu jiro baanu ku jirnay suuq waana dukaan u kor istaagnay. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa gudoomiyaha degmada shaqadii fiicneed ee quruxda badan u qabtay. hadalka intiisii nuxurka lahayd waxaa dhameeyay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo wasiir Cadaala. waxaan rabnaa kaliya oo aan meeshan isugu nimo anaga maanta na soo saaray waxa weeye laba shay. wadciga hadda maanta lagu jiro ama dalku ku jiro qofka mas'uulka iyo dadka shacabka waxa xoog badan qofka mas'uulka. waxaan rabnaa in taa bedelkeeda ay noqoto in dadka shacabka ay awood yeeshaan. meeshii qofka mas'uulka ah la keeno uu awood isagu lahaan jiro garaab garan jiray inta laga guuro oo dadku ay awoodooda iyo gacmahooda ku qabsadaanin oo sida iyagu ay jecel yihiin ay yeelaanin. waa qodobka labaad waxa weeye waxaan rabnaa nabadgelyada. meeshaan nabadgelyada wax badan baa laga soo maray juhdi badan baa ku baxay. waxaan rabnaa nabadgelyada waxay dan u tahay dadka reer Muqdisho bay dan u tahay ummadda Soomaaliyeed ee casuumadda ku nool. waxaan rabnaa nabadgelyada inaanay gorgortan ka gelin. waxaan intaa ku daray oo raacinaya war doorashada nin meel ku jiro oo isagu dantiisa shakhsiga ka fikiraya inuu adiga kugu dulguuro ku yiraaho codayn ma jirto waxba lama codayn kare iska daa oo dantiisa shakhsiga uu ka hormariyo adiga dantaada ka hormariyo adiguba waxa weeye adaa lagu dooran karaa waxna dooran karaa adoo lagu dooran karo waxna dooran karaa inaad nin god ku jira oo ku yiraaho ma samayn kartid ama ma dooran kartid oo isagu dan gaara kaale siday doontaba dantay doontaba ha ahaatee dani kuuguma jirto wax dani inoo kuma jirto. waxaan rabnaa in la soo baxo 25ka inaad codaysaan inaad gacmihiina ku cilbaxdaan ciddaa rabtaan u codaya idinka ayaa awoodda iska leh. annagu ka xukuumad ahaan waxaanu jecel lahay xisbiga aanu ka tirtanahay JSP inaad noo codaysaan codka iyagana siisaan nooguna codaysaan oo nagu qiimaysaan wixii ay qabatay xukuumaddan iyo dawladdan iyo madaxweynahan uu qabtay. sababta ku tahay markuu madaxweynahan imanay meeshaan lama iman kari jirin qof mas'uul ma iman kari jirin makhraantiba cad baa jooga. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed aan leeyahay war wixii aanu qabanay ama dadka madaxda hadda jooga ay qabteen ku qiimeeyo oo wixii ay ka gaabiyaan u sheega. laakiin waxa la idinka rabaa oo muhiimadda ku waa tahay inaad soo baxdaan oo codaysaanin oo dad la doorto iyana wax doorta aad noqotaanin. mustaqbalkeenu taas ku jira taasaan isku garabsanaynaa. waxba inama dheera wadamada dariska nala iyo kuwa naga fogfog ee maalinba qofka iyagu rabaanin dooranaya waxba inama dheera. dhalinyarada reer Muqdisho waxaan leeyahay ama dhalinyarada populationka wasiirka dhalinyaradana waa nala jooga hadalka uu iga damayn doona. dadka maanta jooga ee Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro. war dhalinyaroy mustaqbalkiina way codka la idinka doonaya. waa laga yaabaa inay adag tahay oo dalkan 60 iyo dhowrkii ay ugu dambeysay in la codayo ama waqtigii hore ay ugu dambeysay. waa laga yaabaa inay dadka ku cusubto surprise ku tahay. laakiin waxaad fiirisaan wadamada inaga dariska nala ama kuwa fogfog ee caalamka sida looga nool yahay ay u nool yihiin fiiriye. waxaan rabnaa waxba nama dheere inta ay iyagu qabsadeen in la egnaa nana qabsano inaan nabad helo inaan codayno inaan cidda rabno dooranno inaan isku filaano ayaan rabnaa. intaasaan ku soo koobaya waxba hadalka badin maayo. ilaahay ma hadii weeye meeshii aan cidina iman kari jirin maanta shir jaraa'id lagu dhex qabto madaxdiyo dhameysay u taagan tahay ilaa iyo saaka aan suuqa dhex joogno waa wax lagu mahadnaqo ilaahay loogu mahadnaqo. marka insha Allah bidnaahi karim intaasaan ku koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.